Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegaystayaal daawadayaal mar kale ku soo dhawaada casharkeenii labaad ee chemistry-ga Foundation Chemistry 1 chapterka koowaad Introduction to Chemistry Lesson 2 casharka labaad. Casharkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa Why Study Chemistry? Maxaan chemistry-ga u barannaa? Intaanan casharka u gudagelin fadlan dhegayste subscribe dheh ama gambalaalka taabo si ay kuugu soo degaan wax alla wixii markaa la soo geliyo channelkan cusub. Casharkan maanta wuxuu ka bilaabanayaa Why Study Chemistry? Sababta chemistry-gaan u baranayno. Leen wax walba waxay leeyihiin ujeedo iyo waxa weeyaan wax loo barto. Marka chemistry-ga waa baranaa. Maxaan u baranaynaa? Ilaa 5 qodob baynu ku soo koobaynaa sababta chemistry-gaan u baranayno. Waxay tahay we study chemistry in order to be aware of and understand our environment and surroundings. Chemistry waxaan u baranaynaa buu yiri si aan uga warqabno ama aan u fahanno oo aan u fahanno deegaankeena iyo waxa ku hareeraysan. Qofka markuu chemistry-ga uu barto waxa uu way arag u noqonayaa uu fahmayaa deegaankiisa iyo hareerihiisa. oo taa maxaa laga wadaa? oo waxay tahay hadeer anagu deegaankeeni waa fahansannahay hareerihiisa, laakiin fahansanaan oo waxa weeyaan ama garasho oo chemistry ahaan waxa weeyaan ku salaysan maaha. hadhow markuu chemistry-ga uu barto waxa uu fahmayaa deegaankiisa iyo hareerihiisa ayuu fahmayaa. taa waxaa laga wadaa waxyaabaha positive-ka oo ah ee deegaanka u wanaagsan iyo waxyaabaha negative-ka ah ee deegaanka aan u wanaagsanayn iyo hareerihiisaba qofku uu garanayaa. wuxuu leeyahay waxaan deegaanka uma wanaagsana, waxaan deegaanka way u fiican yihiin buu leeyahay. marka wuxuu noqonayaa qof ka tala bixin kara deegaankiisa, ka dagaalami kara wax alla wixii xun ee deegaanka marka lagu samaynayo. 2. Enable the proper and efficient utilization of natural resources. Chemistry wuxuu noo ogolaanayaa si sax ah iyo si wax ku ool ah inaan uga faa'iideysano khayraadka dabiiciga Ilaahay uu na siiyay. waxaynu haysanaa anagu dhul beerashada ku wanaagsan. waxaynu haysanaa waxa weeyaan qoraxdaas oo 12 saac waxa weeye noo taagan. waxaynu haysanaa macaadin fara badan oo waxa weeyaan dhulkeeni laga helo. marka haddii chemistry-ga la barto, chemistry wuxuu noo ogolaanayaa marka uu siinayaa aqoonta ah sidii aan uga faa'iideysan lahayn khayraadkaas Ilaahay uu na siiyay oo hadeer iska dayacan oo ay aad u yar tahay ka faa'iideysashadooda. marka waxyaabaha uu faa'iidooyinka uu leeyahay ay ka mid tahay chemistry-ga. 3. Solve problems encountered in our daily lives by producing medicine to cure diseases. Chemistry wuxuu xaliyaa waxa weeyaan chemistry-ga haddaynu baranno waxaan xalin karnaa problemyada ama dhibaatooyinka ku imaanaya ama soo wajaha nolol maalmeedkeena. sida waxa weeyaan in la soo saaro dawooyin lagu daweeyo cudurrada. marka haddaan chemistry la baran daawo lama soo saari karo. ileen mar walba waxaa imaanaya cudurro ayaa imaanayo. cudurradaas markay ay yimaadaan waxay u baahan yihiin dawooyinkoodii waxaa lagula noqonayaa marka oo lagula laabanayaa chemistry-yahanada ayaa lagula laabanayaa. ayagaa soo saarayo dawadii wax ku oolka ahayd ee cudurkaas lagu daweyn lahaa. marka haddaan chemistry jirin ama chemistry la garanayn, problemyada soo wajaha nolosheeni waxa weeyaan ma xalin karno. sida hadeer oo kale مثلا coronavirus disease
ayaa haddeer waxa weeyaan adduunyada dhan qabsaday. Chemists-ku ama chemistry-yahanadu waxay ku howlan yihiin haddeer sidii ay u soo saari lahaayeen tallaalkii looga guulaysan lahaa cudurkaas faafitaankiisa. qaarna way heleen. marka faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay chemistry-gu. wuxuu kaloo chemistry-gu soo saarayaa uu faa'iido u leeyahay dadka. waxay awood u yeelanayaan inay soo saaraan fertilizers, bacrimiyaal, waxyaaba carrada nafaqeeya ay soo saari karaan dadku haddii ay chemistry-ga bartaan. intaasay awood u yeelanayaan. to improve soil fertility, si carrada nafaqadeedii iyo bacriminteedii waxa weeyaan kor loogu qaado. ileen carradu waxay u baahan tahay in la nafaqeeyo mar walba. haddii hal dalag ama lagu celceliyo mar walbo nafaqadu way ka dhammaanaysaa. ama waxa weeyaan waxyaabo carrada aan u wanaagsaneyn haddii lagu shubo sida kiimikooyinka iyo sunta iyo wixii la mid ah, waxa weeyaan carrada nafaqada way ka guuraysaa. si ay nafaqadii usoo laabato marka waxa weeyaan fertilizera loo sameynaya, waa la bacriminaya. waxyaaba carrada nafaqayaa lagu darayaa. and more efficient fuels, iyo waxyaabo wax ku ool ah oo waxa weeyaan la isticmaalo, shidaal ahaan loo isticmaalo, ayaa waxa weeyaan uu chemistry-gu inoo ogolaanaya. 4. understand the proper use of drugs. chemistry-ga faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah wuxuu inoo ogolaanayaa inaynu fahanno inaan drugska ama dawooyinka si sax aan u isticmaalno, so as to avoid substance abuse, si looga fogaado marka qofku waxa weeyaan in uu qabatimo ama isku haleeyo ama jirkiisii uu barto nooc oo dawooyinka ka mid ah. marka drug abuse-ku aad buu u dhib badan yahay in qofku waxa weeyaan uu drug u barto. marka maskax ahaan iyo jir ahaan dhibaato ay u geysanaysaa. sidaa daraadeed marka qofka markuu chemistry-ga uu barto kuma degdegayo dawo aan dhaktar u soo qorin ma isticmaalayo. haddeer laakiin dadku waxa weeyaan waxay iska isticmaalayaan kiniiniyaal, iska cunayaan daawooyin bay iska isticmaalayaan oo aan dhaktar u soo qorin. waxaas marka waxa weeyaan waxay leeyihiin saameyntooda ay leeyihiin iyo dhibaatooyin bay u geysanayaan qofka jirkiisa. hadday ahaan lahayd beerka, hadday ahaan lahayd keliyaha, hadday ahaan lahayd maskaxda, hadday ahaan lahayd nafsadiisa xataa, ayaa ay keeni kartaa in uu waxa weeyaan uu halis galo. sidaa daraadeed marka waxa weeyaan si looga fogaado waxaasoo dhan chemistry-ga faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah qofka hadduu chemistry-ga uu barto waxa weeyaan kuma degdegayo dawo aan dhaktar u soo qorin. ilaan wuxuu og yahay haddii daawada dosage-keedii ay badato ama intii loogu talagalay ay ka badato in ay dhibaato gaarsiinayso. haddii waxa weeyaan intii loogu talagalay uu ka yareeyana oo cudurka lagu dawoobi lahaa ama waxa weeyaan oo wax u tari lahaa daawada wax u tari lahaydna, haddii intaa uu ka yareeyana wuxuu og yahay in cudurkii ku siyaadayo. sidaa daraadeed marka qofka chemistry-ga yaqaan nafsadiisii halis ma gelinayo oo waxa weeyaan wuu ka taxadirayaa, wax badan ayuu ka taxadirayaa. qodobka 5. use knowledge acquired to build the nation. qofka chemistry-ga barta wuxuu isticmaalayaa aqoonta chemistry-ga ayuu isticmaalayaa. aqoontaas chemistry-ga ayuu isticmaalayaa. aqoontaas oo loo baahan yahay in lagu dhiso qaranka ama dalka in lagu dhiso. qofka markuu chemistry-ga barto ikhtirac buu sameynayaa. wixii uu bartay ayuu dhaqan gelinayaa. wax cusub buu soo saarayaa. shaqo abuur buu sameynayaa. marka waxa weeyaan aqoontiisii waxa weeyaan ayaa waxa weeyaan dadka dhan ka faa'iideysanaya. tusaale ahaan in improving the health, caafimaadka dadka ayaa waxa weeyaan sare u kacayo oo dadkii baa la wacyigelinaya oo dawooyinkii khatarta ay leeyihiin baa loo sheegayaa oo waxa weeyaan
dadkii baa waxay noqonayaan dad taxadaraya bay noqonayaan. And living conditions of the population, shacabka ama dadka xaaladaha ay ku nool yihiin ayaa kor loo qaadayaa. dadkii baa la barayaa hadeer la leeyahay sidaas sameeya oo waxa weeyaan gacmaha iska dhaq mar walba, musqusha markaad gelayso, markaad ka soo baxayso. okay jeermis dile isticmaal baa la leeyahay, iska ilaali jeermiska. waxyaabahaas oo dhan waxay ku imaanaysaa markii la barto chemistry-ga la barto. ha isticmaalan baa la leeyahay dawooyin aan dhakhtar kuu soo qorin. dadkii baa la wacyigelinayaa oo waxay helayaan aqoon bay helayaan. marka dhegaystayaal, casharkeena maanta halkaas aynu ku soo gabagabaynaynaa. intii aynu ku kulmi doonno cashar la mid ah casharkan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.